xubnahani oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay war shalay ka soo baxay guddiga fulinta ee xisbiga macaaridka ee wadani gaar ahaan xogayaha guud ee xisbiga wadani Maxamed Cabdilaahi Urcade oo sheegay in lagala noqday xubinnimadii isla markaana laga qaaday xilalkii ay ka hayeen xisbiga wadani waxana ay sheegeen in talaabadaasi ay sharciyada iyo qawaaniinta u yaala xisbiga wadani ay baalmarsan tahay mas'uuliyiintani ayaa kala ahaa gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Maroodijeex ee xisbiga wadani Cabdirasaaq Iid Maxamed gudoomiyaha degmada Axmed Dagax Cali Cabdi Muuse xogayaha garabka haweenka degmada Axmed Dagax Aamina Jaamac Cabdixakiin Gaaxnuug iyo Khadar Maxamed Xuseen oo kamid ah xubnaha golaha dhexe waxay sheegeen in gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ay ka dambeeyaan xilka qaadistoodani waa siday hadalka u dhigeen ninkii hawlaha shaqada xisbiga kala wadayay inaan xeer hoosaadka xisbigaba hoos u eegin aqoonna u lahayn waxa weeyaan taasoo kale waa gardarro waxaan odhan karaynaa garabog ciddii waxaan ku hawshaa kula socoteena way soo bixi doontaa wax aanu ka aqbalaynana maaha wax sharciyada lanagu leeyey in miidiyaha lanaga yidhaahdo iyadoo xasaanada aanu leenay xil baanad ka qaaday waxaanu aqbali karayna maaha xagayo majeebadiisu mid kala soo baxaya mid gurigiisa taalon lagu maamulayo inuu leeyahay aniga aad ku maamulaya ummadda hawl soo bandhiga wuxuu annaka nagu eedeynayo hawl soo sheego saxaabadaha soo geliyay miidiya wuxuu nagu eedeynayo waan eriyo kaliin buu soo gelinaya maxaa ma gurigiisa ku shaqeynay waan eedin xagayo haddii aanu isaga u shaqeyno hana eriyay waxaanu nahay xisbiga wadani ahaanaynaana garab kamida ilaa inta cadaaladda aanu helayno waanu ahaanaynaa annagoo garab wadani ah baan ku dhex dagaalamaynaa weliba oonu sharciga ku dagaalamaynaa haddii sharciga lagu kala socon waayo waxa weeye xisbina socon maayo runtaa la isku sheegaya haddii sharciga la qaadi waayo oo sharciga sidee tee lagu dhaqmi waayo ballan waxaan ku qaadaynaa inaan hal calan wadani ka taagnaan doonin Axmed Dagax marka sharciga la qaadi waayo arrinkaasi waa arrin fool xun waa arrin waxaan ku dhahay aanan qaadan karin gudoomiyahayagana mid baan leeyahay gudoomiye Cabdiraxmaan waxaan leeyahay gudoomiye Cabdiraxmaano nin aan ku tuurahayni ayuu ku talin gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodijeex anigoo ah gudoomiye degmada Axmed Dagax Cabdixakiin Gaaxnuug Cilmi oo ah xubin golaha dhexe iyo Khadar Maxamed Xuseen oo ah xubin golaha dhexe inaanu helno mar haddaanan xeerkii xisbiga wadani aanu naba qabanayn oo aanan eed aanu samaynay oo buugaa ku taala jirin ama warqad digniin ah oo nala siiyey miidiyahana aanu ku jirin gacanteedana aanu ku jirin inaanan aqbalayn xeerka uu jeebkiisa kala soo baxay murashaxa xisbiga wadani maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi gudoomiyaha ku-meel gaarka Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde iyo hogaamiyaha xisbiga Xirsi Xaaji Cali Xasan saddexduba ilaa xalay waan sabaaleynay waanu ka dursugnay markii aanu weynay wax go'aan ah ama tala ah ama qaraar oo ka soo jeediyeen warqadii miidiyaha naloo samariyay ayaanu goosanay inaan anagu shirka jaraad qabno xogayaha guud iyo gudoomiyaha iyo murashaxa xisbiga wadani runaantii waa wax isla ogyiin Xasan Maalidar telefishinka RTN magaalada Hargeysa.